kulanti wanaagsan asxaabta qiimaha naga mudan ee ku xiran bartan YouTube-ka Idaaja Media ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub waxaan muuqaalkan ku soo qaadanaynaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday dalka China taasoo noqotay dhacdada ugu hadalhaynta badan caalamka waa aabba 1997 laga afduubtay wiilkiisa oo aad u yaraa aabbahaasoo 24 sano raadinayay wiilkiisa ayaa ugu dambeyntii wuxuu helay wiilkiisa haddaba sidee ku dhacday in 24 sano kadib wiilkaasi la afduubtay la helo siduu ahaa dareenka aabbahaas markuu la kulmay wiilkiisa waxaan kaloo barnaamijkan ku faahfaahin doonaa arrimo mucjiso ah uu aabbahaasi la kulmay intuu ku guda jiray safarkii dheeraa ee wiilkiisii ku raadinayay ninkan u dhashay dalka Shiinaha ayaa ku guuleystay inuu rumeeyo riyadiisa ahayd inuu helo wiilkiisa kaasoo la afduubtay 24 sano ka hor kadib safar dheer oo qaatay 24 sano ayuu odaygan bilaabay maalintii la waayay wiilkiisii oo markaa uu aad u yaraa wuxuuna safarka ku maray 500 kiiloomitir wadanka oo dhan isagoo wata mooto ay ku xirnaan yihiin sawiraanta wiilkiisa sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Shiinaha 13 bishan Julaay ayaa waxaa dib u kulmay aabba 24 sano raadinayay wiilkiisa iyo wiil indhuhu u basaaseen sidii uu maalin ula kulmi lahaa waalidkiisa wiilkaasoo isagoo 2 jira dadka wax tahriibiya ay ka afduubteen gurigooda oo ku yaala gobolka Shandong ee dalka Shiinaha sanadkii 1997 aabbahan ilaa waqtigaasi wuxuu u safray in ka badan 20 gobol oo wadanka oo dhana wuxuuna safarka ku maray mooto sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dadweynaha ee dalka Shiinaha kadib booliska dalkaasi ayaa bilaabay inay raadiyaan aqoonsiga wiilkiisa iyagoo adeegsanaya tijaabooyinka DNA-ga ah warbaahinta China News ayaa sheegtay 2 eedaysano oo nin iyo haweena in gacanta lagu dhigay kuwaasoo booliska ay ku daba joogeen muddo badan taasoo markii dambe sahashay in la ogaado halka ay wiilka geeyeen iyo cidda ay ka iibiyeen warbaahinta ayaa sheegtay in wiilka go'aa la helay walina uu ku nool yahay gobolka hadda oo aan wiilkaygii la helay wax walba waan ku farxi doonaa ayuu warbaahinta u sheegay odaygaasi intii uu ku guda jiray safarkii sandheer wuxuu ka jabay lafaha kadib markii uu shil galay wuxuuna la kulmay burcadda wadooyinka kuwaasoo dhac baahsan u geystay wuxuuna 24 sano isticmaalay 10 mooto ah wuxuuna safarkaasi kala kulmay dhibaatooyin aan tiro lagu koobi karayn wuxuuna ugu dambeyntii ka rumeeyay riyadiisii ahayd inuu maalin uun helo wiilkiisii ay ka fogeeyeen burcad lacag doona kuwaasoo carruurta afduubata booliska ayaa sheegay in maalintii Isniinta ahayd ay soo heleen hinshan oo ah wiilka guwaa oo hadda qaangaara booliska ayaa baahiyay muuqaal kooban oo ay ku kulmeen familkaasi ayaa waxaa muujinayay qoyskii oo ilmeynaya oo si adag isuga duuban ayagoo ku qaylinaya waan ku helnay oo waad noo soo noqotay si kastaba afduubka carruurta waa dhibaato weyn oo ka taagan dalka Shiinaha kumanaan kun ayaa la afduubtaa sanad walba waxaana la qiyaasay sanadkii 2015 in 20 kun oo carruur la afduubtay qaar badan oo ka mid ah carruurtaasi ayaa la iibsaday sidii loo korsado kuwaasoo loo iibgeeyo gudaha dalka iyo dibaddaba ugu dambeyntii waxaan halka ku soo koobayaa muuqaalkaas inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga idaaja oo idin la sidaas iyo nabadgelyo